kulan ballaaran oo lagu qabtay magaalada Frankfurt ee dalkani Jarmalka ayaa waxa soo qabanqaabiyay jaaliyada reer Somaliland ee degan gobolka Hessen ee dalka Jarmalka. kulankani oo ay ka soo qayb galeen aqoon-yahano, dhalinyaro, culimaawidiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa lagaga hadlayay sidii jaaliyada Somaliland ay waxtarkeeda u gaarsiin lahayd jamhuuriyadda Somaliland iyo waliba sidii jaaliyadu ay u abuuri lahayd xiriir qoto dheer oo dhexmara jamhuuriyadda Somaliland iyo dalkani Jarmalka. intii kulanku socday oo uu ka hadlay gudoomiye Maxamed Xuseen Dhacsi ayaa waxa uu sheegay in jaaliyada Somaliland ee degan gobolkan Hessen looga baahan yahay dadaal dheeraad ah si dalkii iyo dadkiiba ay wax u taraan. dhanka kalena waxa halkaasi ka hadlay Cabdi Michael oo ah isagoo xogayaha jaaliyadaasi, isagoo sidoo kale sheegay inuu dhiirinayo oo bogaadinayo dhalinyaradan reer Somaliland ee degan gobolka Hessen ee dalkani Jarmalka. intii kulanku socdayna waxa halkaasi lagu doortay gudoomiye loo doortay Axmed Xuseen Axmed. jaaliyada reer Somaliland ayaa dhanka kale la oran karaa waxa ay tartan kula jirtaa jaaliyadaha kale oo ku filiqsan gobolada dalkani Jarmalka, kuwaasi oo tartan ugu jira martigelinta 18 May oo laga qabto guud ahaanba caalamka iyo gaar ahaan Somaliland oo ah maalintii Somaliland ay calankeeda la soo laabatay. Mustafa Haji Aadan, Home Cable TV, Jarmalka.